بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد عيد مبارك عيد سعيد maanta oo ah maalintii koobaad ee ciid al-fitriga maamulka degmada Daynile oo horkacaya gudoomiyaha degmada Daynile waxaan maanta halkaan ugu qaybinay dad masaakiina caruur agoon ah iyo kuwa dan yar oo waxba haysanin dhar ciid oo gaaraya ilaa 200 oo qoys kuwaas oo sida aad aragtaan hadda la siinayo oo ay gacantooda ku haystaan hadana maamulka degmada Daynile waxaan mar walba garab taaganahay dadka shacabka ah degmadan gaar ahaan kuwooda taagta daran agoonta iyo kuwa aan heli karin maanta oo kale oo muslimiinta ay farxayaan inay la farxaan dadka ilmaha walaalahooda oo da'da ay leeyihiin sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan uga farxino oo aan intii aan kari karnay aan iidsiino maantay 200 oo agoon ah iyo kuwa dan yar oo aan ka soo xulnay dadka deegaanka iyo barakacayaasha sida hore u soo sheegnaba anagu mar walba waxaan garab taaganahay maamulka waxaan ka shaqeynaynaa danta shacabka waxa u daran iyo waxa ay u baahan yihiin sidaas darteed xuraan ayaan dhex galnay waxaan ogaanay in aysan awoodin qaar badan oo kamida oo agoona oo dan yara inay maanta oo kale ilmahooda ka farxiyaan sidaas darteed ayaan maamulka oo horkacay gudoomiyaha waxaan go'aansanay inaan intaan kari karna ka farxino ilaahay wuxuu u qadaray 200 oo ilmahaas agoonta iyo dan yarta inaan maanta ciid uga farxino waa ilaahay fadligiis dhammaan ummadda muslimiintaana waxaan rajaynaynaa inay saan oo kala samayn doonaan qof kastoo awoodahay qof uu iidsin doono qof kastoo mas'uul oo awoodaana oo qof ilma agoona ama taag daran iidsin doono ummadda muslimka hadday iska can qabato cid kale uma baahna waxaan leeyahay maalmahan oo kale waa maalmaha loo baahan yahay muslimiinta inay iska qabtaan inay isla farxaan inay isdhex galaan waxaan leenahay intaas ka badan inaan sameynay laakiin awoodda intaas nagala ekaatay aad waxaan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha degmada maxamed abuukar jacfar oo runtii nagu hogaamiyay naguna horkacay inaan dadkaas masaakiinta ee barakacayaasha aan maanta intaan awoodi karno iyo kuwa dan yarta aan ka iidsiino waxaan leeyahay gudoomiye waa mahadsan tahay tusaale fiican aad noo tahay waana kugu dayo doonaa dad badanna way kugu dayo doonaan haddii ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin maxamed cabdiqaadir cali jacfar yare محمد عبد القادر علي جعفر يري arrimaha bulshada gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Daynile